السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وولالكيني قدر قيس ما أنت وحان رباينا كهادلو عشر كسابسن عشر لديني كليتو هراء عشر كينا ما توحو كسابسن هاي سيدي لو استعمالها آب سيجنال مسنجر بريفيت آب سيجنال مسنجر بريفيت سيدي لو استعمالها محونا تياهان وكفي عني هاي انتاس انت انا اوغودا قالين عشر كينا وحان اد اوغو حما هاي ان ان channel كي كما قانا هاي بلوينكي لسو دافاي سو جرا اوغود ايسي ديرتاي ان انا هاي ارضي wax barto ان شاء الله waxaan rajeynayaa inaan dib ugu soo laabto hawada update aan ahaado marka horeyso waxaan soo furneynaa Play Store-ka si aan ula soo baxno app Signal Messenger markii aan Play Store-ka sidaan u furno waxaan halkan ku qori doonaa Signal waxaad qoraysaa Signal oo kaliya ama Signal Private Messenger haddii aad inta qortid uu ku soo baxaya misana Signal Messenger okay Signal oo kaliya ayaan hadda qoray wuxuu ii soo saaray Signal waxaan dhahayaa update waan sugayaa intuu ii update gareysmayo Signal Private hadda wuu sirjin gareynayaa install ayuu dhahayaa wuxuu raadinayaa inuu open ii soo qoro sida hadda ku muuqato wuxuu ii soo qoray Signal Private Messenger open ayuu hadda ii soo qoray waan sii gudgalayaa wuxuu ku soo saarayaa haddii aad joogtid gudaha Kenya ku samayso lambar Kenya ahaan ah haddii aad joogtid gudaha Soomaaliya ku samayso wadanka aad joogtid ee lambarkiisu yahay wadan walba oo aad joogtid waxaad ku samaysanaysaa lambarkiisa adigoo kor ku qoray country aad joogtid halkan ayaa waxaan gelinayaa lambarka aan joogo anigu hadda waxaan joogaa Kenya waxaan gashanayaa lambarka aan ku samaysan lahaa app Signal Messenger waan dhameystay lambarkaygii waxaan dhahayaa next haddaan gareynayaa wuxuu raadinayaa inuu yahay lambarka mid uu ku jiro taleefankaaga oo ku shidan yahay si uu ku soo diro code ama uu searching gareeyo hadda wuxuu keenay enter the code we sent haddaan wuxuu caadi u soo diray code-kii asaga ayaa is xareynayo adiga ma xareynaysid waxaad sugaysaa inta uu iska searching gareynay hadda wuxuu ii soo qoray tick wuxuu leeyahay gasho bin ku qaas ah waxaan gashanayaa binkayga haddaan waxaan dhameeyay code-kayga waxaan leeyahay continue wuu searching gareynayaa ilaa haddaan daatada ayaa iga yar culus saamaleynayo hadda wuxuu ii soo saaray caadi app Signal Messenger-kayga si caadi ah ayuu hadda u shaqeynayaa halkan ee qalinka ah wuxuu kuu sheegayaa inta lambar ee kugu jiro ayuu kuu sheegayaa haddii ay jiraan inuu isticmaalayo qof aad ka haysid lambarkiisa ama uu app Signal Messenger soo degsaday isla markiiba uu ku soo gudgareynayaa adigu ku leeyahay app Signal Messenger waxa samaystay saaxiibkaaga soo aad gareyso app Signal Messenger halkan ku qoran kaamirada waa halkii aad sawiraantaada ka soo xulan lahayd ama aad ka soo gashan lahayd halkan kaleeto saddexda dhibac ah waa halkii aad ka maamuli lahayd setting-gaaga mark already inta qof aan isticmaalin friends-kaaga new group setting waa meelihii aad dhan ka isticmaali lahayd inta aan isticmaalay app Signal Messenger waxaan ku arkay laba ciladood oo kaliya oo cilada koowaad tahay inuusan lahayn share app tan labaad inuusan lahayn status ama aan la daawan app Signal waxaa la daafuray ama la bilaabay 29 July ee 2014 waxaana bilaabay daafurka app Signal Messenger laba ruux oo kala ah Makio Milsbig iyo Brian Action waxay bilaabeen hay'ad Signal Foundation oo $50 milyan hordhac ah ka helay bishii September 2017 app Signal Private Messenger waxa lagu gudo jiray 2014 ilaa 2017 intaas dhan ayaa la sameeyay hadda ayuu tahay sanadka 2021 uu soo hirgalay app Signal Messenger ciladu lahaa oo aan ku sheegay horay oo ay tahay inuusan lahayn share app iyo inuusan lahayn status laakiin sida la sheegay waxa la sii horumarin doonaa sanadka aan hadda ku dhex jirno ee 2021 dhexdeeda sida aan ka maqlay baraha bulshada ama social media-ha hadalhayntooda ugu badnaa waxay ahayd in laga guuri doono WhatsApp-ka loona guuri doono app Signal
balse haddii uu leeyahay ciladaas uma malaynayo in uu ka fiicnaan doono WhatsApp-ka maadaama oo la dhahay Facebook iyo WhatsApp-ka ayaa la isku furiyaa waxaana loo guuriyaa app Signal Messenger sida uu soo baxay app-kan app ka horeeyay oo magaciisu ahaa Telegram oo hadalayntiisuna ahayd in uu ka fiican yahay WhatsApp-ka loona guuri doono balse taa uma malaynayo in uu ka fiican yahay Telegram-ka WhatsApp-ka laakiin app-ka Signal Messenger waxaan sugaynaa inta laga soo sameeyo verified caadi ah oo loo soo fasixi doono sanadka hadda aan ku dhex jirno ee 2021 dhexdeeda insha Allah haddii aad ka heshay muuqaalka like saar aad baad u mahadsan tahay waxaa inoo ballan ah cashirkeennii xigo insha Allah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.